السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu maanta ku soo dhaweynay madaarka caalamiga ah Cigaal International Airport gudoomiyaha hay'adda khayriga ama Gurmad Relief Xasan Maxamed Finiis Century. Xasan Maxamed Finiis Century halkan waxa ugu diyaaraa odayaashii xaafadda mas'uuliyiin xilal culus ka haya xisbiga wadani sidoo kale isaguna waxa goobta ku sugan gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Maxamed Amiin oo ah isaguna murashax u tartami doona doorashooyinka baarlamaanka. Xasan Maxamed Finiis Century haddii aan iyar ka taabto kaliya ta arrimaha gurmadka kaliya ka shaqeynayeen xagga waxbarashada ayuu ka shaqeynayay xagga ciyaaraha ee gobolka Hawd waa rag ila asaasay oo kamid ahaa runtii waxaan ku leenahay Xasan Maxamed Finiis Century ku soo dhawow dalkaaga hooyo kulamaynu yeelan doonaa runtii aad baynu u sheekaysan doonaa aad iyo aad baan idin salaamay sidoo kale iyaguna waxa ku sugan gudoomiyihii Gurmad Relief ayaa ku sugan dalka gudihiisa Axmed sidoo kale dhalinyar aad u fara badan aad iyo aad baan dhamaantii idin salaamaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان waxaan balyeynaya dadka soo dhaweynaya Xasan Maxamed Finiin oo ah gudoomiyaha Gurmad Relief ama ah jaaliyada dibadda ee ka shaqeysa tabarucaadka deegaanada ama dalka Soomaaliland waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo kuleeyna gudoomiye soo ahayn marka waxaan leeyahay ku soo dhawow kaaga soo horeeyay inkastoo ay fiicneed inaanu hayno gudoomiyaheeni dalka gudihiisa halkan waxa jooga afayeenkii Arab Maxamed Ali aan isagana ku soo dhaweyn doono intiisa oran doono hadii la yiraahdo aad baan idin salaamay siday aad baan idin salaamay dhamaan ka soo qayb galayaasha soo dhaweynta mujaahid Xasan Maxamed Finiin oo ah gudoomiyaha ururka khayriga ah ee Gurmad oo waxay qabatay iyo waxay ka shaqeysay saaka halkan hadal aan lagu soo koobi kareenin Soomaaliland oo laga wada og yahay xasawaan nin miisaan culus ku leh gobolka Hawd iyo Hargeysa iyo dhamaan Soomaaliland oo dhan meel badan oo Soomaaliland ka kalana wax badan ka taray qadiyada Soomaaliland rag aad iyo aad ugu dagaalama kamid ah aad iyo aad baan Xasan u soo dhaweynaynaa oo nin miisaankiisa leh ku soo dhawaabaan Hargeysa aad iyo aad baan idin salaamay dhamaantiin maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno oo aan soo dhaweynay gudoomiyaha hay'adda khayriga ee Gurmad Relief Xasan Maxamed Finiin oo uu ku lamaan yahay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Amiin Cabdi Cilmi ahna murashax xildhibaan u taagan golaha baarlamaanka gudoomiye Xasan runtii ururka Gurmad Relief waa urur khayriya waa urur baan leeyahay xilligii loo baahnaa ee bulshadu u baahnayd abuurmay ama aasaasmay oo bulshadeena ninkii garanaya xasuustay dadku barwaaqada waxba ilaabanay xilli wuxuu abuurmay loo baahnaa oo waliba ay dadkeena aad u caawiyo runtii oo riigagu dhistay oo wax walba u dhisay waxa iyaguna goobta ku sugan arday badan oo jaamacadaha Xasan iyo groupkiisu ay ka bixiyeen oo maanta iyagoo academiga oo maaragtay aqoon-yahanada maanta soo dhaweynaya waa wax aad iyo aad loogu farxo Xasan waa nin culus waa nin waxaan ku wariyay dalka iyo dadkaba wax u taray isagoo qurba jooga maanta inuu dalkiisa hooyo ku soo nabad noqdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku leeyahay gudoomiye ku soo dhawow dalkaaga hooyo welcome home anigoo gudoomiye gobolka Maroodijeex waxaan soo dhaweynayaa Xasan Maxamed Finiis Century oo ah gudoomiyaha Gurmad iyo gobolka Maroodijeex waxaan soo dhaweynaynaa Xasan Maxamed Finiin gudoomiyaha Gurmad iyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha Soomaaliland waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay gudoomiye soo dhawow runtii gudoomiye Xasan waa nin taariikhda waxaan ku meel fiican ka galay waa nin waxaan ku runtii arrimaha samafalka si fiican uga qayb qaatay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad welcome ku soo dhawow caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi in badan asxaabtan ka shaqeeya Xasan waxay runtii ay xuseen inuu gudoomiyaha Gurmad Xasan runtii waxa weeye waxa jiray waxa weeye arrimo badan oo waxa weeye khayriya ugu horeeyay أنا waxaan ku hadli doonaa afka dhalinyarta aqoonyahanka ee jaamacadaha waddanka ka soo baxay Xasan waxa weeye rag ka mid ah ay ka soo saareen ee ubad kalkaal runtii Xasan waxaan oran karaa maanta waxa kugu filan sharaf maanta in 20 nin oo dhalinyaro aqoonyahan oo waxa weeye tolkaaya oo maanta waxa weeye taytala fiican ka yahay bulshada oo qaar dhaqaatiir yihiin oo qaar injineer yihiin oo meel fiican maraya in waxa weeye adiga iyo tiimkii waxa ku shaqeyn la'aantood maanta aan halkaas soo gaareen marka runtii aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa aad baan ku soo dhaweynayaa runtii waa nin aad iyo aad u qiimo badan waa nin runtii ku suntan inuu ka shaqeeyo arrimaha khayriga hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto wadooyin hadday noqoto caafimaad ku soo dhaweyn kale wada waddankaaga wad maadsantahay maanta ay taariikhdu tahay 18 bishii koobaad
2019-2020 waxaan soo dhaweynaa gudoomiyaha Gurmad Relief Xasan Maxamed Finiin iyo murashaxa Maxamed Amiin Cabdi Cilmi xasan maxamed finiin haddaan kelmadii laba ka idhaahdo waa nin aad iyo aad u fara badan hawlo badan oo khayriye qabta annaga saameyn gaar ah ayuu nagu leeyahay haddaan nahay dhalinyarada waxbarashada ee ka qalin jebisay jaamacadaha Hargeysa wuxuu ahaa gudoomiyihii ama asaasayaashii ururka la yiraahdo Ubadkalkaal Foundation oo ay ka qalin jebiyeen arday ka badan dhowr iyo 20 arday ilaa haddana uu gacanta ku hayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaaga hooyo gamca furan iyo qulub saafiya dhammaan waa mahadsantiin guud ahaan waan soo dhaweynay marka hore waan salaamayaa inta soo martida soo dhaweysay Xasan Maxamed Finiin gudoomiyaha ururka khayriga ee Gurmad Relief iyo Maxamed Amiin soo dhawaadan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha Xasan sida loo sheegay waa nin culus weeyaan waxa iyagana mahad gaar ah leh oo aan u mahad celinaynaa dhammaan inta ururka gudida kula jirta Gurmad Relief ee la shaqeysa haddii gudaha tahay haddii dibadda tahay iyo dhammaan inta tabarucaadka soo dhiibta maartay Gurmad Relief kamida inta la garab taagan dadkooda dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan ka caawinaya iyagana waynu mahad celinaynaa runtii waa laga sheekeeyay Xasan maanta wuxuu baynu tusaynaa wixii ay qabteen Gurmad Relief ay qabteen ay umadooda u qabteen baynu maanta tusaynaa haddii la hayraa mar hadduu inoo yimi marka Xasan waxaan leenahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu alayhi wasallam marka hore waxaynu soo dhaweynaynaa labada mas'uul ee noo yimi waa Xasan iyo Maxamed Amiin waa gudoomiyaha Gurmad Relief iyo musharaxa shaqada wakiilada haddii in yaraan ka sheekeeyo runtii waxyaabaha ay soo qabteen haddaan ka horeeyo xasan waa gudoomiyaha ururka khayriga ee Gurmad Relief waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah waddada Baligubadle oonay ururka gudoomiyaha u yahay la'aantii halkii maanta taagan tahay aan istaagteen runtii waa mid ahaynu ugu mahadnaqayno isaga iyo ururkiisaba waa urur mudan in lagu daydo waxaynu ognahay caafimaadka ay ka fuliyaan deegaanada gobolka Hawd iyo deegaanka Berbera barigeeda runtii wuu mutaystay maanta inaynu soo dhaweyno qofka qiimihiisa laba jeer baa la gartaa waa maalinta u dhintay aaskiisa la raacay dadka ka soo qayb gala iyo maalinta meel ka soo degaysada maanta oo kale dadka soo dhaweeya wuxuu mutaystay runtii in la soo dhaweeyo in loo mahadnaqo in lagu ammaano in loo duceeyo in lagu daydo waxqabadkiisu intaas kuma koobna Soomaaliland oo dhan buu ma garanaysaa ayuu waxqabadkiisu gaadhay wuxuu baan ku soo gabagabayn lahaa waa nin ka muuqda halku ku jiro oo mutaystay waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf maxaa maanta ilaahay u beelo safarkaygan inaanu maxaa airportka Hargeysa ka soo wada degno Xasan Maxamed Finiin oo sida dhammaantiin wada sheegteen nin maxaa ka dhex muuqday dhammaan shaaliyada maxaa balkii dibadda ku maqan Soomaaliland ama maxaa balkii beesha iyo dalka gudihiisa waa runtii nin lagu yaqaan inuu yahay maxaa balkii dalkii dibadda isku xidho sida la sheegay martadii hay'adda Gurmad Relief iyo maxaa balkii barnaamijyo badan oo kale oo uu deegaanka iyo dadka wax ku taray runtii maxaa balkii waa la wada sheegay waxaan filayaa in laftigeedana hawlo badan oo kale maxaa balkii insha Allah mustaqbalka ka rajeynaa Xasan runtii maxaa balkii saad ugu mahadnaqdeen ee soo dhaweyseen idinka laftigiinu aad baan ku maxaa balkii mahad celinayaa dhammaan dadkiina ka soo wada qayb galay inta soo abaabusheeba sababtoo ah bulshadu iyo bilaadanku kulku waa dadka wax taro in maxaa balkii wax tarka uu qofku sameeyay la dhiiri geliyo oo la sheego way wacan tahay waa shay keenaya in dad badan oo kale runtii maxaa balkii ku dayasho ay martay mudato oo qofku martay balkii kulka la xuso waa sharaf iyo karaamo runtii aad baan runtii maxaa balkii Xasan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo idinkiina dhammaantiin maxaa balkii intii soo dhaweynta waxda badan maxaa balkii soo abaabushay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartan sharafta leh ee iskugu jirta madaxda guud tolka iyo ururada sida ururka Ubadkalkaal Rancho
maxaan ku dhahdaa guddida afgarad guud gudoomiye ku-xigeenkii ururka gurmad relief oo ah aasaasihii ninkii fikradda lahaa axmed mahdi iyo rag fara badan oo kale dhammaan asxaabta halkan taagan oo dhan waana kala saarsaarayn oo qof u soo koobi karin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa soo dhaweynta qaaliga sharafta badan leh aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iyo ammaanta faraha badan leh naan isleen maydaan mutaysan waxaan leeyahay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa horta ilaahay keenay halkii aan ku ababay iyo halkii aan ku dhashay anoo nabada waxa kale aan halkan soo dhaweynayaa isaguna xildhibaankayga maxamed amiin iyo xildhibaanka kale cabdilaahi cali xasan oo labadaba laba nin oo aad u taageera ah iyagana waxaan leeyahay soo dhawaada maxamed amiin waan wada soconno safarkaanu ku wada jirnay dhammaan garyaqaanka dhammaan dee ragga halkan wada jooga dhammaan aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin